mahadsanid xasan. barta tiktok ayaa si adag uga jawaabtay hanjabaadii madaxweyne Trump ee ahayd inuu tiktok ka mamnuucayo dalka Maraykanka isagoo ku sababeeyey walaac laga qabo in bartay macluumaadka gaarka ah ee dadka reer Maraykan la wadaagto dowladda Shiinaha. maamulaha guud ee tiktok Vanessa Baba ayaa sheegay in tiktok ay dalka Maraykanka ka haysato malaayiin taageero u ah oo isticmaala bartooda. waxa uu sidoo kale maamulaha carabka ku adkeeyey inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya iyaga iyo dowladda Shiinaha. warbixin ka soo baxday dalkaasi Brazil ayaa muujinaysa in bishii July uu sare u kacay dabka deegaanka Amazon marka loo barbardhigo bishii July sanadkii lasoo dhaafay. madaxweyne Bolsonaro ayaa dadka ku booriyey inay keynta Amazon ka samaystaan dhulbeereed iyo goobo macdanta laga qoto. hase yeeshee kadib cadaadis kaga yimaaday maalgashadayaasha caalamiga ah ayay dowladdiisa mamnuucday in dhulkaasi la banneeyo sababo la xiriira dhibaatada uu dabka horseedo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaranka Mexico ayaa baaraysa xariggii lagula kacay dhakhtar lagu soo eedeeyey in uu khalad ka galay gabar u dhimatay fayraska corona. dhakhtarka ayaa xabsiga loo taxaabay bishii lasoo dhaafay kadib markii ay haweeneyda sheegtay in dhakhtarka uu qoyskeeda weydiistay in ay soo iibsadaan dawada isagoo ku sababeeyey inay isbitaalka ka dhammaatay dawadaasi. wasiirka caafimaadka ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in haatan uu dalkiisa diiwaangeliyey in ka badan nus milyuun kiis oo fayraska corona ah. Koonfur Afrika ayaa noqotay dalka shanaad ee dunida ugu tirada badan fayraska corona, waxayna maamulka sheegeen inay si xowli ah u sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan safmarka ah. ugu dambeyntiina dalkaasi Philippines ururada matala ku dhowaad 2 milyan oo shaqaale caafimaad ah ayaa madaxweyne Rodrigo Duterte ku booriyey inuu magaalada Manila dib ugu soo rogo xadidaadihii adkaa. 80 urur ayaa qoray in lagu guuldaraystay dagaalka lagula jiro xanuunka COVID-19. warkiisu waxnimana wanaagay inta xasan sheekh cumar. aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir yuusuf cali oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. dhegaystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen dalka Koonfur Afrika waxaa maalinta ka dambaysa sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo fayraska corona. tirada dadka uu soo ritay ayaa iminka dalkaasi gaartay nus milyuun qof sida ay dowladda dalkaasina sheegtay. dowladdu waxay wadaa dadaalo cudurka looga hortagayo ama lagu xakamaynayo. warbixinta ay arrintaasi BBC-da ka qortay waxaa soo akhriyay oo haatan stuudiyaha ila jooga Axmed Badar oo soo saaray barnaamijkan. Axmed, dalka Koonfur Afrika waxaa la leeyahay waxaa sare u kacay fayraska corona, bal wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan? wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa xasan oo asagoo lagu magacaabo Zwelina Mkhize ayaa waxa uu sheegay in sabtidii oo keliya dalkaasi laga helay tiro gaaraysa 10,107 qof oo markaasi kiisas cusub ah, taasi oo tirada guud ee dalka Koonfur Afrika cudurka uu soo ritay ka dhigaysa 3,290 qof. marka waa nus milyuun qof sida wasaaradda caafimaadku ay sheegtay. waxaa sidoo kale cudurka coronavirus xasan oo dalka Koonfur Afrika ugu dhintay dad gaaraya 8,153 qof. balse khubarada dhanka caafimaadku ayaa waxay sheegayaan xasan oo in tirada dhabta ee fayraska corona ugu dhimatay Koonfur Afrika laga yaabo in intaasi ay markaasi ka sarreyso. dalka Koonfur Afrika ayaa xasan noqonaya dalka sida baan ugu dhuftay fayraska corona marka qaaradda Afrika la eego. guud ahaan tirada dadka u haleelay qaaradda Afrika marka la eego Koonfur Afrika ayaa kala bar ah. sidoo kale Koonfur Afrika waxa ay kaalinta shanaad xasan kaga jirtaa caalamka oo dhan tirada kiisaska, waxaana ka horeeya oo kaliya Mareykanka, Brazil, Ruushka iyo dalka Hindiya. saraakiisha caafimaadka dalkaasi waxay sheegeen in tirada dadka uu soo ritay fayraska corona ay aad sare ugu sii kacaysay maalinba maalinta ka dambeysa, islamarkaana kiisas badan laga helay magaalada Pretoria. Koonfur Afrika waxaa xanibaad lagu soo rogay xasanow bilihii Abriil iyo May, taasi oo la sheegay in gacan ay ka geysatay hoos u dhigidda in cudurkaasi uu sii faafo. toddobaadkan soo dhaafin ay ahayd markii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay markaasi ka digtay in dalka Koonfur Afrika uu hormuud ka noqon doono dhanka fayraska guud ahaan qaaradda Afrika marka la eego.
waata mahadsanyahay axmed badur oo warbixintaasi dalka koonfur africa iyo fayraska corona nala socodsiinayay. dabcan warbixintaasi oo faahfaahsanna waxaad kasii akhrisan kartaan barta aynu ku leenahay internetka ee bbcsomali.com. xerooyin ay ku jiraan dad barakacayaal ah oo ku yaala deegaanka soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxaa laga helay kiisas la xiriira fayraska corona, waxaana wasaaradda caafimaadka ee deegaanka soomaalida Itoobiya ay sheegtay in 17 qof oo ka mid ah barakacayaasha ku jira xerada Qalooji laga helay cudurka, taasi oo maamulka ku abuurtay walaac. saraakiisha caafimaadka deegaanka ayaa hadda wada dadaalo looga hortagayo faafidda cudurkaasi. agaasimaha waaxda gurmadka degdega ee xafiiska caafimaadka deegaanka soomaalida ah Abubakar Sheekh Aadan Ismaaciil ayaan qadka telefoonka kula xiriiray, waxaana uu iga warramay bal heerka uu gaarsiisan yahay fayraska corona ee deegaanka soomaalida ee dalka Itoobiya. xaaladda xanuunkan ama caabuqa COVID-19 kolley waktigii uu bilowday waxay ahayd deegaankana xaaladii koowaad lagu arkay 26 abriil bay ahayd. intii ka dambeysay way jireen kaysasku way jiraan ilaa hadda way jiraan. waktiga iyada xaaladdu waxay ku bilaabatay dad soo galooti ahaa oo wadamada jaarka ah ka soo gelayay sida wadankeena Soomaaliya, Djibouti iyo Kenya kasoo noqonayay bay u banaayeen. laakiin laga bilaabo bishii May ilaa hadda bulshada dhexdeeda way jirtaa xaalado ama kaysas laga helay way jiraan. guud ahaan ilaa hadda xaaladaha ama kaysaska deegaankeena aan ka xaqiijinay waxay noqonayaan 694. agaasime, dadka soo galootiga maxaad ula jeedaa? dadka soo galootiga kolley afka qalaad returning baa la dhahaa. dadkaasi waxay ahayn dad Ethiopiana oo wadamada jaarka ka shaqeynayay ama sababo badan awgood ugu maqnaa. xaaladan markay bilaabatayna dib ugu soo laabtay wadanka. waxaa jira kiisas cusub oo laga soo sheegayo xerooyinka dadka barakacayaasha ee deegaanka, bal arrintaa nooga waran. arrintaa kolley war qaxooti iyo waxaa kala jiri kara dad barakacayaal ah. kolley warku sidii idin soo gaadhay in laga helay hadda waa dad barakacayaala. xanuunkuna sidaan kuu sheegay hadda bulshada dee u dhex galay, waana filan haynaa meel kasta inuu geli karo. waan filan haynaa hadda waxaan ururin haynay muddooyinkii lasoo dhaafay muunado fara badan ama saambalo fara badan si aan bulshada u ogaano xanuunku sida uu dhex galay oo baaritaanka lagu ogaan karo. kaysaska aan hadda helnay ama xaaladaha aan helnay waa xaalada aanu ka helnay xeryaha barakacayaasha sida xerada Qalooji Jijiga 50 kilomitir u jirta oo kale. waayahay, xeryaha dabcan dad badan ayaa ku jira, marka ma jiraan wax tallaabooyin ah oo aad qaadeen haddiiba aad ogaateen in xeryaha cudurkii uu ka jiro? walaalow way jirtaa. kolley annaga diyaargarowga iyo jawaab bixinta xanuunkan waktigaan bilownay waxay ahayd bishii March sanadkan. diyaargarowga iyo jawaab bixinta xanuunkan waxaan arrimaha iyaga ka wadnay guud ahaan deegaanka ama xeryaha barakacayaasha ha noqoto oo xirfadlayaal caafimaadna inoo joogaan. dadaaladii kale iyo fariimihii loo baahnaana aan mar walba ku dadaalayno inaan gaarsiino ama bulshada deegaanka ku dhaqan guud ahaan ha noqoto. dadaalada waan wadnay, haddana kolley waan sii laba jibaaraynaa. waxaan samaynay kolley meelo lagu dabiibo ama lagu daweeyo dadka xaaladahan aan ka helno. sidaasi lamida meelo lagu karantiino ama kuwarantiina baan samaynay. marka dadaaladu ma yaro. dadka ku nool xeryaha ee barakacayaasha ee cudurka laga helay tiri ahaan intay gaarayaan ma noo sheegi kartaa, iyo guud ahaan dadka ku nool xeryahaasi inta ay leegyihiin? xeryahanan hadda saambalada aan ka qaadaynay waxaa ka mid a xerada barakacayaasha faraha badan ay ku nool yihiin ee Qalooji. halkaa keliya kuma koobno, barakacayaasha kale ee aagga Jijiga iyaga laftooda ku sugan waan ka dhex wadnay. guud ahaanna bulshada kolley dhexdeeda baaritaanada waan ka wadnaa. marka xerada barakacayaasha ee Qalooji 110 ayaa lagu qiyaasaa 1000. dadka aan ka helnay hadda waxay noqonayaan 17 qof. 17 qof dad xaaladoodu iska caadi tahay oo iska shaqaysanayo nolol maalmeedkoodii caadi ahaan ugu jira bay ahaayeen. xeryahan ay ku nool yihiin ku dhowaadka 100,000 oo haatan laga helay 17 qof oo ka mid ah, sideed ku ogaan kartaan dadkaasi dadkii ay la kulmeen? walaac inteesa leeg ayay idinku haysaa arrintaasi maadaama dad badan oo barakacayaal ah halka ay ku nool yihiin? walaac way nagu haysaa oo meesha dad fara badan oo soo barakacay oo
maxaa ku dhahdaa xaalado jiri u soo barakacay inay u tahay hoy marka walaa taa way ka jirtaa laakiin markii xaalad laga helo xanuunkan waxaa tallaabada xigta dadka la sooco la daweeyo dadka ay la kulmeenna qaabkii loo heli lahaa la gudagalo marka waa wadnaa contact tracingiga waxa la yidhaahda ama dadkaas calaaqaadka dhow la yeesheen in la helo waa lagu guda jiraa kulley waan kooxaha caafimaadkeena xibsaarnay way wadaan dadaalka agaasimaha waaxda gurmadka degdega ee xafiiska caafimaadka deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Abubakar Sheekh Aadan Ismaaciil ayuu ahaa oo qadka telefoonka igu waramay qodobkaasi qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da ayaa dhinaca Facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay dhageystaan oo lagu magacaabo Faarax Maxamed Xirsi oo jooga Galkacyo waxa uu leeyahay runtii aad baan uga xumahay maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo walaac ka muujinaya kiisaska fayraska corona ee laga helay xiriyaha barakacayaasha waxaan ku baaqayaa ayuu leeyahay in arinta loo xirto wax laga qabto dhageysta kale oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Cabdullaahi oo jooga Hargeysa waxa uu leeyahay kiisaska cusub ee laga helay xiriyaha dadka barakacayaasha ee dawlad deegaanka Soomaalida waa arrin laga xumaado waxaana kula talinayaa uu leeyahay shacabka in ay taxadaraan wali halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markaana danjiraha Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Xinjiang ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu gaaray magaalada Hargeysa ee xarunta Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Liban Yusuf Cismaan oo socdaalka safiirka u xaqiijiyay BBC-da ayaa sheegay inaanu wax kulamo ah safiirku la yeelan madaxda Somaliland markii uu gaaray ilaa xalay balse saaka la filayo in shirar ay markaasi yeeshaan waa safiirka Shiinaha iyo madaxda Somaliland ayaa dhawaan shaacisay in ay xiriir diblomaasiyadeed wada yeesheen Taiwan oo ay Shiinuhu oo ah wadan Shiinuhu u arko qayb dalkiisa kamid ah waxaana uu sheegay inaanu jeclaysan arintaasi hase yeeshee Somaliland ayaa gaashaanka u dururtay hadaladii Shiinaha ee ahaa inaanu xiriirkaasi hirgelin lama hubo in socdaalka safiirka Shiinaha ay la xiriirta arinta oo dawladdiisu ay si toos ah u soo dirtay iyo in kale hase yeeshee marka shirarkaasi la filayo maanta inuu la yeesho madaxda Somaliland ay yeeshaan ayaa la ogaa doonaa waxyaabaha ay ka wada hadlaan ama ay ka wada hadli doonaan waxaana idinkugu soo gudbi doonaa warkaasi idaacadeena dambe haddii Allah awoodda la yiraahdo wararka Soomaalida aynu ku sii soconay sanad walba marka la gaaro bisha tobnaad iyo kuwa ka dambeeya waxa meelo badan oo geeyaga Soomaalida kamid ah lagu qaban jiray bandhigyo buugaag oo ay qaarkood ku laran yihiin kulamo lagu gorfeynayo fanka iyo suugaanta Soomaalida iyo tababaro la siiyo dhalinyarada leh hibada qoraalka farshaxanka iyo noocyo kale oo la xiriira fanka haddaba sanadkan sida uu dunida u saameeyay safmarka corona ayaa Soomaaliduna la qabta oo waxa baaqday kii ugu da'ada weynaa bandhigyada oo ah bandhiga caalamiga ah ee buugaagta ee Hargeysa oo gugiisii 13 tirsaday waxaase wali bulshadu isweydiinayaan miyuu baaqday mise talow dib ayaa loo dhigay haddaba arintaasi waxaynu ka wareysanay Dr. Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa ahna qabanqaabiyaha bandhiga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa waxa uu waramay wariyaha BBC-da Axmed Nagaashe su-aashaas waa su-aasha dadweyne fara badan dibadii gudabaysa soo weydiinayaan oo soo weydiinayaan jawaabtuna waxa weeyaan bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa waa sanad leh mar haddii la yidhi dib baa loo dhigayna macnaheedu waxa weeyaan sanadkiibaa dib loo dhigay waxaan uga jeedaa oo inta badan dadku ay u fahmaan in bandhigu uu yahay 6 cisho ama 7 cisho ee uu bandhigu socdo ee uu magaalada Hargeysa ka socdo laakiin Axmed oo walaalo sidaad la socoto barnaamijku diyaarin fara badan oo aad u dheer buu leeyahay waxa jira wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale ee dunidaba ka dhacay bandhig buugaagta oo kaliya ku salaysan sanad kasta waxa jira dal martiya sanad kastana waxa jira mowduuc laga hadlo marka xaqiiqdu waxay tahay iminka xaaladda lagu jiro waxa aan ku sheegi karaa inaan bandhigii sanadkan sidii hore loogu talagalay aanu u dhacaynin oo macnaheedu ay tahay inaan la isu imanaynin mar haddii ay sidaa tahay Dr. Jaamac oo aan la isku iman karin suurtagal ma tahay inaad qabataan doodihii iyo niqaashaadkii oo aad isticmaashaan internetka ama tiknoolajiyadan kaleba dabcan aad iyo aad baad u mahadsan
mahadsantahay iminkaba waxa ka socda oo aanu bilownay waxay toddobaadkani u hada toddobaadkii bandhigu dhici lahaa sidaad la socod arbaca kasta waxaa la qabtaa barnaamijka la yidhaahdo bandhigii oo isu bedelay waxa la yidhahdo Africa 44 oo macnaheedu yahay in aqoon-yahanadii iyo qoraayadii iyo gabyaagii iyo siyaasigii iyo mufakirkii iyo maskaxmaalkii iman lahaa bandhigu halkii ay u soo duuli lahaayeen halkan iman lahaayeen in ay ku soo galaan aalada Zoom-ka baan inta badan isticmaalaa dabadeedna ay ku soo galaan oo faaqidaadii bandhig buugaagtii soo bandhigeen ama doodihii ay qabanayeen ama mawduucdii durba way bilaabantay oo arrinkaasi waa arrinkan ku bedelay waxa jiray tababaro la siin jiray daayarta soo kacaysa ee hibada qoraal kale oo la hagi jiray oo la toosin jiray iyo tababaro kale oo ay bixin jireen khubaraad soo xasuuntaan suurtagal miyay tahay in tababaradii lagu bixiyo Zoom-ka haddii lagu bixinayana miyay fududahay mawduucyadii way bixi doonaan qaarkood weli waxay ku bixi doonaan iyadoo la isu imanayo oo tababarada qaarkood weli waa la isu iman karaya waayo tirada dadka ka qaybgalaya baa yar waxaanaynu ku rajo weynahay mar haddii dalkii iminka laga qaaday culayska dadkii gudaha ee macallimiintii haddii wada joogeen halkaa dhibaato weyn kama aragno laakiin sidaad adiguba carabooday waxaanu qaban doonaa oo ay tababaradii qaarkood ku bixi doonaan si online ah oo waxa lagu soo geli doonaa aalada internetka taasi waxay saamaxaysaa arrinkaa taabatay odhanaya haddii markii hore aan 100 qof la tababari jiray ama 200 qof la tababari jiray bandhiga dhexdiisa iminka in dhowr kun oo qof iyagoo guryahooda jooga lagu tababaro oo ama ha noqoto qoraal culinta toolmoon ama ha noqoto habfaneedka kale ee ay ka mid tahay sawir qaadista iyo haddii badankeed leeyahay farshaxanka kale iyo haddii badankeed leeyahay film samaynta intuba inay ku bixi doonaan iyaga oo online marka tire intii hore aad uga fara badan inaanu gaadhnaan ku rajo weynahay tire intii ka fara badan inaad gaadhaan way dhici kartaa waana suurtagal inta awoodda u leh internetka ee weliba qurbaha ku nool ee xiisaynaysa dhaqanka iyo fanka Soomaalida waxa jira dad badan oo aan awoodi karin oo aalada internetka iyo qalabkii lagu isticmaalayba aan heli karin oo aadna ugu taxnaa bandhiga iyo barnaamijyada kale aad qabataan waa maxaa u tacsiyabaad isleedihiin ee aad ku sabarsiinaysaan والله كواسي وحنا aad ugu rajo weynahay inaanay kulley ka lumin fursadii oo xarunta dhexdeeda lagu qabto marka qaababkii waxbarasho ee xarunta dhexdeedu way socon doontaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in culeyskan uu saa inaga tago marka waxaanu isku kabaynaa qolooyinka in xarunta dhexdeeda wax loogu dhigo macallimiinta joogtaa halka wax ugu dhigaan macallimiinta kale dibadda joogtaana ay ka soo galaan oo dibadna iyagoo weli xaruntii jooga oo aan soo gelin ku qasbanaanin inay computer gurigooda ku haystaan mar kale hela macallimiintii dibadda joogtay iyo kuwii gudaha joogayba marka runtii anagu waxaan u arkaa inaanaynu xagga ka eegin uun tabnaanta xagga tugnaanta waxyaabahan dhacay culayska yimi inuu ina tababaray oo ina tusay inaynu awoodo kale oo ka fara badan leenahay intii hore aynu lahayn oo weli aynu shaqadeennii qabsan karro innaga oo aalada cusub ka faa'iidaysanayna ee technology-ga iyo innaga oo isku dayayna waxa awoodeennu tahay ee dalka gudihiisa inoo yaallaba marka axmedow ma ka rajo xumi halkaa ardaydiina kuwii xitaa aanu gaari weynay magaalooyinka kala joogay jeclaan lahaa inay nagu soo xidhmaan weli way nagu soo xidhmayaan waxa loogu qaban doonaa kooriskoodii si gaaban baa loogu qaban doonaa xarunta dhexdeeda marka qolada dabadda ka soo gelaysay qoladii halkan joogta labadiiba way haystaan runtii marka waxaan u arkaaba faa'iido inay ka soo bixi doonto tirada aanu gaadhaynaa runtii kaasi wuxuu ahaa doctor jaamac muuse jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa ahna qabanqaabiyaha bandhiga caalamiga ee buugaagta ee magaalada Hargeysa Axmed Nagasho ayuu u rameeyay markaana xayiraadaha fayraska corona ayaa saameyn ku yeeshay howlaha muhiimka ah ee ganacsiyo badan iyo dhoofinta agabka dibadda loo qaado laga soo bilaabo shirkadaha baaskiilada ilaa beeraha muuska balse hadda dalal badan ayaa bilaabay inay fududeeyaan xayiraadihii si ganacsiyo badan ay u soo kabtaan wariyaha BBC-da Thomas Nadia ayaa booqday mid ka mid ah beerta ugu weyn ee caalamka ee soo saarta muuska oo ku taala dalka Ghana warbixintan ayuu nooga soo diray waxaase soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xaaji Cabdu halkani waa beer aad u weyn oo heer ganacsi ah oo uu ka baxo muuska aan haba yaraatee hidisadayaashiisa la dhala rogin waxaana la oran karaa waa beerta muus noocaasi oo uu ka baxo ta ugu weyn dunida waxaa inta ishaadu qabato oo dhan ka baxaya geedo muus ah waxaanad arkaysaa in khudraddaasi inta aanay bislaan lagu duubay baco daloolo yaryar leh ujeeddaduna waxaa weeye in cayayaanku cunin oo waxaa lagu ilaalinayaa tayada sanadkii hore Ghana waxay Yurub u dhoofisay 90,000 oo tan oo muus ah 77,000 oo ka mid ahina waxay ka soo go'een beerta weyn ee 15 sano jirsatay ee ku taala koonfurta Ghana beertan waxaa leh shirkad la yiraahdo Golden Exotics Limited bedka ay ku fadhidana waa 600 oo hektar carrada iyo cimilada halkani ayaa aad ugu habboon beeraha oo wuxuu ku soo go'aa muuska halkani ka baxa 8 bilood oo kaliya
goobtani waa qaybta lagu diyaariyo muuska la dhoofinayo oo waxaa ka shaqeeya 70 qof oo shaqaale ah oo waxay naqeeyaan muuska. waxaad arkaysaa in shaqaalaha badankoodu ay xidhan yihiin afsaab amaba maaska iyo sidoo kalena waxaa labadii isku dhowga u dhexeeya daah baca ah oo loogu talagalay in aanay isku soo dhowaan. goobtani waxaa lagu kala naqeeyaa 300 iyo dheeraad maalintii. maaraya ku-xigeenka oo la yidhaa Abena Ambonsa ayaa ka warramaya sida loo farsameeyo muuska marka geedka laga soo jaro ilaa iyo marka la dhoofinayo. marka muuska laga soo gooyo beerta waxaa la keenaa goob lagu hubiyo tayadiisa, kadibna inta tayadiisu fiican tahay ayaa la geeyaa bakhaarka lagu cabeeyo. marka hore waxaa la eegaa sida loo soo jaray in ay tahay si habboon oo aan khudradda dhaawac gaarin, kadibna sida ay gacan uga weyn tahay ayaa loo kala saaraa, kadibna waa la sii kala gooyaa oo isaga oo rubuc yar ah ayaa lagu cabeeyaa kartoomo. waxaana loo kala saaraa sida uu u kala tayo fiican yahay iyo sida uu u kala waaweyn yahay, kadib ayaa la geeyaa goobta laga qaadayo marka la dhoofinayo. shirkadda waxaa u shaqeeya qiyaastii 3,000 oo qof waxaanay ku bixisay lacag dhan $400,000 ah badbaadada shaqaalaheeda. Benedict Ridge oo ah agaasimaha guud ee Golden Exotic Limited ayaa ka warramaya sida bandoodii hore bisha Abriil xukuumadda Ghana uga soo rogtay dalka ee dhowrkii toddobaad socday ay sida baaxadda leh u hakisay wax soo saarka muuska. habka wax kala iibsiga ee guud ahaan suuqa isbeddel ayaa ku yimid markay dadku ku jiraan bandowga. baahida mooska iyo cananaaska hoos ayay u dhacday. waxaa jiray toddobaadyo ay sare u kacday baahida khudaarta, balse ma aanan haysan wax dheeraad ah oo aanu ku qancin karno dadka. marka sidaa darteed kama aanan faa'iidaysan. hase yeeshee khasaaro ayaa ina soo gaartay markii ay yaraatay baahida. qiimaha saameyn ayay ku yeelatay sababtoo ah ma jirin cid og waxa suuqa ka socda. xuduudaha la xirayna waxay nagu yeesheen saameyn aad u ballaaran. ilaa iyo haatan ma cadda goorta dalka Ghana xuduudihiisa uu furi doono, waxaanay khubaradu sheegayaan in dhaawaca fayraska corona uu gaarsiiyey ganacsigu yahay mid uu muddo dheer u sii dhutin doono. uu mahadsan yahay cabdiraxmaan xaaji caddo oo warbixintaasi soo jeedinaya. weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa BBC. markaana wararka ciyaaraha, ciyaar xiisa leh oo ahayd kulanka kama dambaysta ah ee koobka FA Cup-ka oo xalay ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London ayaa Arsenal waxa ay 2-1 uga guuleysatay naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Chelsea, iyadoo koobkana uu yahay kii 14aad ee Arsenal ay ku guuleysato. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa warbixintan ku eegaya ciyaartaasi iyo xiisihii ay lahayd. gool dhaliyaha reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang ayaa mar kale ka dhabeeyay mucjisada ciyaareed ee uu ku soo bandhigay garoonka Wembley kadib markii kooxdiisa Arsenal uu ka caawiyay in ay ku guuleysato koobkii 14aad ee tartanka FA Cup-ka ee ugu faca weyn adduunka kadib guul 2-1 ah oo ay ka gaartay naadiga Chelsea ayaa ciyaarta hoggaankeeda qabatay 5 daqiiqo gudahood iyadoo kubad qurux badan oo ay isku dhiidhiibeen kooxda dharka buluug ah ugu dambeyntii uu lugta la helay weeraryahanka Mareykanka u dhashay Christian Pulisic. Nice taken turn by Pulisic. Here's Mount, who that time did try to find Giroud. Giroud finds Pulisic, and Pulisic skips past the challenge to pop the ball into the Arsenal goal quite beautifully. laakiin waxaa la haystay iyo dhibana ay u noqdeen wacdarihii Aubameyang kaasi oo ahaa halyeyga Arsenal ee ciyaartan iyo tii ka horeysay ee ay ku soo gaareen heerkan oo 2 gool uu u dhaliyay ay kaga soo guuleysteen kooxda Manchester City kulamadii afardhamaadka. goolka koowaad ee Aubameyang ayaa ahaa gool kulaad uu kooxdiisa u dhaliyay daqiiqadii 28aad iyadoo rigoorahaasi uu ku yimid qalad uu ku galay kabtanka Chelsea Cesar Azpilicueta. laakiin goolka labaad ayaa ahaa mid in badan ay xusuusan doonaan mucaashaqiinta kubadda cagta. And that's what he's done. He gave Caballero absolutely no chance. Rifling Saciid Haybe oo ka faalooda ciyaaraha ayaa ka warramaya sidii Chelsea ciyaarta ay ku bilowday iyo wacdarihii ay Arsenal markii dambe ay la timid. maanta Chelsea ayaa firfircooneyd qaybtii hore isla daqiiqadii 5aad markii ciyaarta la bilaabay. ciyaaryahan Christian Pulisic khadka dhexe Chelsea uga ciyaara ayaa u suurta gashay in gool qurux badan halka ka dhaliyo. Chelsea dhinacooda marka laga eego qaybtii
qaybtii hore wax ka dhaawmay kabtan Azpilicueta taasoo dhibaatooyin kooxda u keentay in yar daqiiqada kadib markii la ciyaaray qaybtii dambena ciyaaryahan Christian Pulisic oo isna aad u firfircoonaa maanta ayaa isna maruq booday oo ka dhaawmay waxaad moodaa labada dhaawac Chelsea inay dhibaatooyin u keentay waana ku adkaatay inay ciyaarta ay sidii ay doonayeen u ciyaaraan mashaqadii Chelsea haysatay waxay ka sii dartay daqiiqadii 73 markaasi oo kaarka cas loo taagay Mateo Kovacic kaasi oo sida muuqatay kaarka jaalaha ee labaad lagu tilmaamay in uu ahaa degdeg uu u taagay garsoore Anthony Taylor waxay uga dhigan tahay in tababaraha Arsenal Mikel Arteta uu taariikh u dhigay kooxdiisa isagoo noqday qofkii ugu horeeyay ee koobkan ku guuleysta isagoo ciyaaryahana iyo waliba tababare guuldarrada Chelsea waxay ka macno tahay in 3 jeer 10 ciyaar ee finalka ugu dambeeyay laga badiyay FA Cup-ka iyadoo 3daasina ay ka badisay Arsenal waxay guushan uga dhigan tahay in tan iyo 2002 7 mar oo ay timid finalka FA Cup-ka ay ku guuleysatay mana jirta koox intaasi oo mar isku xigta finalka timid haddaba Arsenal maxay uga dhigan tahay guusha ay ku hanatay koobkan waa kan mar kale Siciid Haybe Arteta wuu ku guuleystay khadkii uu la yimi inuu ciyaaro shaxdiisii maanta sanadkii hore bishii 12 ayaa Arteta shaqada loo dhiibay inkastoo ay ku adkaatay inuu ciyaartooyda ugu fiican uu safo Ozil uu ka tagay mar walba aanu ciyaarsiinba sidii looga soo noqday Covid-19 haddana waa suurta gashay inuu ku guuleysto FA Cup-kii shaqada imika u taala Arteta waxay tahay ciyaartooygan Aubameyang kabtanka ah semi-finalkiina laba dhaliyay maanta finalkiina laba dhaliyay oo tusay inuu yahay ciyaartooyga ugu fiican kabtankii kooxdu yahay ma haysan doona Aubameyang waxa laga yaabaa inuu doonayo inuu ciyaaro Champions League kooxda uu yiraahdo waa tagaya sanad baabari kooxda 3 sano jira ma sii yaraanayo uu sii weynaanaya marka waxa dan ugu jirta inuu baxo isaga khaasatan shakhsi ahaan laakiin kooxda hadday jeceshahay inay Aubameyang haysato waa inay contract fiican siiso si kastaba ha ahaatee Arsenal imika waxay maskaxdeeda ku sii jeedaa 29 bisha August oo garoonka Wembley marka ay ku soo laaban doonto halkaasi oo ay isku hirdin doonaan Liverpool oo qaaday horyaalka Premier League iyadoo kooxda FA Cup-ka soo qaaday kooxda Premier League-na ay ku tartamaan koobka Community Shield-ka oo la qabanayo maalintaasi waa hagaag uu mahadsan yahay Mawlid Xaaji Cabdi oo warbixintaasi xiisaha leh suukan soo dibiriday isla markaana nooga soo diray magaalada London dhageystayaal iyada ayaana ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkii subaxnimo oo soo saaray Axmed Badan anigoo Xasan Shucmar ah ayaa idin la socodsiinayay dhinaca farsamada waa Mubaarak Cabdalla dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin kaga tagaynaa tan iyo 2 duhurnimo sidaa iyo nabad gelyo